xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidhi oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada burco oo maanta qaybo ka mida warbaahinta kula hadlay magaalada berbera ayaa waxa uu sheegay in khilaafkii maalmihii u dambeeyey u dhexeeyey maayirada magaalooyinka burco iyo berbera in maalinta sabtida khilaafkooda lagu dhammayn doono magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waxaana uu fariin u diray shacabka reer somalilan waxaana uu sheegay in gobolada saaxil iyo togdheer uu ka dhexeeyo xidhiidh soo jireen ahi xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi halkan aan berbera ku sugana maanta alxamdulilah halkan fariin uga diro marka hore shacbiga reer somalilan saa la socotay waxa warbaahinta ku jirtay hadalla maartay iswadaarsadeen labadeena maayar abshakuur iyo maxamed muraad ayaa hadal iswadaarsan runtii hawsha labada maayar runtii uga mahadnaqaynaa maayar abshakuur cidin inuu naga aqbalay runtii inuu maartay wixii runtii dhacay inaan kusoo dabaalnay heshiis sidoo kalena maayar maxamed muraad oo naga aqbalay runtii inaanu isagana maaragtay aanu runtii wixii arina jiraan dhammayno marka labada maayar baa uga mahadnaqaynaa runtii inay aqbaleen inay isu yimaadaan oo waa runtii waa dad ehela waa dad runtii waa laba hogaamiyey berbera iyo burcana waa laba magaalo runtii isku mid shacabkuna waa isku mid guud ahaanba shacabka reer somaliland isku mid way runtii maxay arrintaas u dhacday warman laakiin waxaan runtii arrinka uga mahadnaqayaa maayarka magaalada berbera iyo maayarka magaalada burco labaduba aqbalay runtii inay hawshaasi halkaa ku istaagto ay gabcays qabsadaan oo halka ay ku heshiiyaan oo aan u ballanay runtii kulan aan isugu keenay labada maayarba maalinta sabtida marka waxaan runtii ka codsaynaa shacbiga waxaan hore pagekayga facebook aan ugu baahiyey qoraal aan leeyahay hawshaa waa dhammaynay halkaasay ku istaagtay wixii runtii dambe dadku ay wadwada in la joojiyo waxaan u sheegaynaa dadka wadwadaya arrintaa labada maayar inay joojiyaan in laga hadlo maaha arrintaasi way dhammaatay wadwadkeeda hala joojiyo fadlan waxaan rajaynaynaa inaanay mar dambe aanay soo noqnoqon arrintaasina runtii waxaan u sheegaynaa shacbiga reer somaliland meel kastoo joogaan ee arrintaasi way dhammaatay waana soo afjarnay wuxuun baa noo hadhay inaan isu keenno labada maayar oo ay isu yimaadaan oo gabcays qabsadaan runtii waxaan ugu talagalnay runtii inaanu dhammayno haddii ilahay ka dhigay insha allah hawshaa maalinta sabtidaan soo afjarno waa cabdirasaaq qaasim jaamac wararka telefishinka som news magaalada berbera.